maxaan ku rahdaa Soomaalidiya waxay sameynayaan maxaa la dhihi jiray meeshii nidaam iyo ma arkino saf iyo wax meeshii la gali lahaa waa la isku buuqaada maalmii ugu dambeysay waxa la Soomaalida qallaasta dhalisay saasa sababta marka Soomaaliya hadaa rabtiin in wax lidin qabto lidin qaabilo si nidaam ah ma arkino yani wax kumara oo safkiina ha ka boodinina gabar yar oo hadda soo baxaysa muhiil yar hadda soo baxaya wuxuu adeerkiisa kale ku dulboodo asikaligiis ma arkino meeshii wax soo dhameesto ama gabar xaamila oo ku horboodo ama gabar ilmo la carareyso marka insha Allah meel walba tagna nidaam aan ku joogno hadda anaga qowmiyadaha kale lama joojirin qowmiyadaha kale Soomaaliya fiiriya qowmiyadaha kale lama joojirin tirkoobka ma laga joojin Soomaali bisa laga joojiyay assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta qaaliga YouTube channel-ka naga la socotaa qoska qarniga walaashin Shams marka la isku soo noqdo wanaagsan walaalihii hore noola joogay iyo walaalaha gadaal nooga soo biiro dhamaantii waa maasantiin soo dhawaada minkiina waa hayas martiyeenina insha Allah subscribe ku cusub iyo subscribe ka hore jazakallah dhamaantiin ilaahay abaalkiina janaha ka dhigo si share garay please muuqaalka da soo gasho like noo sar like ta aad inoo caawinaysa waxay nooga caawinayna muuqaalka meel dheer gaaro حتى هذا شرقرنت كوجا أدقته لك تلا إيسار بليس وما تسنتين سؤاله وحاجر معلمها آد لإيسو دينا قيبت كومنتي آد لإيسو دينا دتكنا آد وحيسين عيان إنه وحكوا قادان وأرمها يوغندا وأرمها قحوتية وأرمها جريها وحيابها سفر بدن وهر بسم الله رسل كهرب مالنا يقدم بيسينا كسو هذلو وح بدن لو إسكب بدلين ولا شيء يوغندا haday tahay maxaan ku raadayay qaxooti haday tahay deegaan ahaan haday tahay maxaan ku raadayay maciishadii wax kasta adduunka way isbedeleen ma aha Uganda kaliya meel kasta wax iska bedeleen wax walba irka isku shareeran taas waa ogtihiin anteen marka wax walba way isbedeleen taas arba inaan ka hadlo su'aasha koowaad aan rabo inaan ku bilaabo dadkuna aad iyo aad ma arkin way u daneynayaan inay wax ku ogaadaan waa midda qaxootiga maxaan ku raadayay Shamisay ma furmeen maxaan ku raadayay qaxootigii la isdhiibayay maxaan ku raadayay ma furntay meeshii booliska la iska dhiibay qofka markuu wadanka ku cusub yahay uu imaado dad xataa waxa joogo oo yaani wadanka ku cusub walina aan isdhiibina joogo ama dacwaha uu imaadaan ama danahooda gaarka ah u imaadaan ama deegaan ahaan ha u imaadaan su'aalahaas marka ay ugu badnaa oo maalmahan ma arkin aan rabay inaan mar insha Allah muuqaal ka soo sameeyo alxamdulillah ilaahay caawino qadar ilaahan ku mahadsan anagoo nabad qabna isku keen soo celiyay qaxootigii ma furmay ma furmin goorma furmaya wuxuu furmaya bariyo furmaya ma ku dhihi kari bari dambo furmayana ma ku dhihi kari ayaga dhaheen xilliga ugu soo dhow oo furmayo xilliga doonta ha noqoto dhawaana horta la rajeynaya taas ku bishaaraysta insha Allah xilliga oo furmayana yaani way ka shiraan warqaday soo saaraan warqadaha saama arkino ama banaankooda ku soo dhajiyaan kadib dhalinyaro Soomaali TikTok ee keenan meel kasta keenan ma fahanteen insha Allah anigana markii ugu dhow ee ma arkino ka soo hadlaan oo ama warqad ka soo baxdo oo la dhaho qaxootiga ma arkino OBM ta laga xukumaayay dawladda yaani soo saxiixan in ma arkino qaxooti cusub la qaabili karo waa idin la soo wadaagi doonaa biidnillaahi kariim diin naftaan beena baaqi noo tahay insha Allah ma fahanteen marka xilliga ugu dhow insha Allah oo ma arkino lagu dhawaaqo in ay furan tahay oo qaxooti cusub oo isdhiibi karo taas waa ku dhawaaqay yaani waa idin la soo wadaagi doona dadka qaar waxay dhahayaan lacag ma lagu isku dhiibaa maxaa la isku dhiibaa see waaye ruuxaantii marka ugu horeyso dawladda Uganda ama qaxootiga Uganda isi soo dhiibayo dawladdu waxay u qorsheysay inay si free isku dhiibaan ma fahanteen wixii adiga goonidaada u bixisay adiga ku taala laakiin dawladda waxa ma arkino ka mamnuuca musuqmaasuq qofka markuu is dhiibayo marka taasna saasa ila fahmi doontaan okay nolosha Uganda maxaa isbedelay nolosha Uganda maxaa isbedelay Shamsay horta wixii corona ka dambeeyay wax badan nolosha Uganda iska bedelay haday horta Kampala aan ku noolahay meelaha kale tamo ogi laakiin dabcan waana la mid kulay kirada haday tahay guriga qaaliye noqdeen koow iskuulada maxaan ku iraahdaayay adeegi raashin haday tahay qudaar haday tahay hilib haday tahay wax walba corona ka hor saa ku ogeed maanta maaha intii ma arkino familku bixi jirtay maanta ma ku baxayso ma fahanteen wax walba way isbedeleen horta guriyihii cirkay galeen siiba guryaha cusub oo hadda la dhisaayo fahmaysaan magaalada markeedii horeeto qol iyo fadhi yaa dhihin maxaan ku raadayay 3 qol iyo fadhi waxa ku helaysaa $300 waageedii hore haddana waa iska nasiib guryaha dhulka waa ku heli kartaa maxaan ku iraahdaayay hadda taan guryaha cusub oo dhisaayo waa qol iyo fadhi leeya
$300 lagu kirisanaya marka halkaas maxaa ka fahmaysiin okay guryihii hore hadaa nasiib ku heshid waa guryo raqiis waa laga helaa waa guryihii hore laakiin guryaha cusub oo hadda la dhisaayo waa qaali cirka maba la taaba karo mid kale deposit awal lama shubi jirin guryaha qaar oo cusub oo hadda la furo deposit qaarkood barteen guryo furaha la kala gadanayo xataa waa arkay xalay maran maxaan ku raadayay shalay muuqaal ma soo gelin kiseeyan jiro shalay xoogaa marmar waqti la iska soo qaato oo la iska soo bedesho waa iska fiican tahay marka wax muuqaal lama soo gelin kaligay waxaan ku raadayay waa iska baxay oo baasha halkaas iska aadi guryo waxaan arkay waa hal qol iyo musqul iyo jiko oo waxaan arkay lahay freeze waa kala gataa gurigan ma aaminaysan waa hal qol iyo musqul iyo jiko freeze waa gadanaysaa okay marka noloshiisaas isku bedeshay guriyihii way isbedeleen qaaliyo noqdeen maxaan ku raadayay korontadii awal si u barakeysno wax walba waa la cadaday wax walba yacni waa la yareeyay ma fahanteen yacni halkaas waxaa ka dareemaysaa inay ma arkin wax walba ay qaali noqdeen hadda Kenya oo kaleeto qofkii 2,000 oo Kenya money ku shubto korontada bishi dhan firiijyada Kenya habeen iyo maalin ay damiyaa laakiin Uganda habeenkii la shitaa maalintii waa la damiyaa sababta korontada aad u shaqeynay way ka dhamaanayciyo kolba aniga saasa aqaana dad badan oo aqoonin maybe inay jiraan marka Kenya naftirkeeda intii 2,000 yani intii 1,000 shilin la gadi jiray korontadii unitki 1,000 shilin lagu sii jiraa 2,000 hadda laga siinaya marka meel kasta waa Kenya waa ku ogeyn nolosheeda inay qaaliheed Kampala hadda Kenya ay abri Nairobi inay nolosheeda qaaliheed waa ogeyn Kampala hadda sidii ku soo socotaa wallahi beenidii ma sheegaya ku dhahay sidii ku soo socotaa dadku baa fahmayeen lacagtan tirada badan moogi qofkii Nairobi ka imaado oo inta imaado wuu dareemayaa magaaladan in ma arkino wixii ay raqiis ahayn qof walba waxa ka imaado wuxuu oo maxaa loo dhahaa Kampala wixii waa raqiis intaas ugu baxday intaas bariyo aan joogay marka mid kaleeto qaxootigii haddaan ku noqdo maxaan ku raadayay Soomaalidiya waxay sameynayaan maxaa la dhihi jiray meeshii nidaam iyo ma arkino saf iyo wax meeshii la gali lahaa waa la isku buuqaad maalmii ugu dambeysay waxa la Soomaalida qallaasta dhalisay saasa sababta marka Soomaaliya hadaa rabtiin in wax lidin qabto lidin qaabilo si nidaam ah ma arkino يعني wax kumara oo safkiina ha ka boodinina gabar yar oo hadda soo baxaysa wiil yar oo hadda soo baxaya wuxuu adeerkiisa kale ku dulboodo oo asikaligiis ma arkin meeshii wax soo dhameeysta ama gabar xaamila ah oo ku horboodo ama gabar ilmo la carareyso marka insha Allah meel walba tagna nidaam aan ku joogno hadda anaga qowmiyadaha kale lama joojirin qowmiyadaha kale Soomaaliya fiiriya qowmiyadaha kale lama joojirin tirkoobka ma laga joojirin Soomaali bisa laga joojiyay sababta maxay tahay mataqaana ayaga wax walba oo dib ku keena ayaga isku hor carro dad waxa moodaa ayaga degdeg ku furan yahay inay yihiin qof walba soo doono u dhaqmaaya marka Soomaalidii dibteedii abaatay isaasa wixii loo joojiyay ma fahanteen laakiin qowmiyadaha kale wali way u shaqeeyaan waxooda nolosha Uganda taasaan hadda ka xasuusnaa in nolosha isbedeshay guriyeen ay qaali noqdeen wax walba oo nolosha Kampala ku saabsan inay yani wax walba inay kaceen oo sidoo hore maanta aysan ahayn laakiin adeeg kugu xiran tahay adii hadaa waxa ga dhaqaaleysatid adii hadaa aqli magaaladan ku joogtid waa ku joogi kartaa laakiin hadaa aqli ku joogeen orada uga bixay ma fahanteen Kampala kistaada Allah meesha noo arxana ku dhaha asxaam la isku falo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu xifdiyo inta u soo socota Allah ku xifdiyo inta joogta Allah ku xifdiyo dhamaanteen waxaan ku dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo barakeeyo nolosha meel kasta aan joogno marka wixii aan ka kala tagayna hadii ay jiraan markaas wax xasuustaa muuqaalka soo sameyn doona insha Allah muuqaalka noo share gareey like noo saar subscribe noo saar waa maasantii dhamaatiin jisaaka la khayraad leeyahay